السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقة كسو دوادا شارب الشو وأن مرور بكرة السعطان وركي وقدم بصوماليا إيو عالم كبا ما أنت بيشو وصدح هي طبعا بيشا لبعض فبرايو لبعض كون إيو لبعضن إيو كودة waxaan iisoo gudbinaynaa laba qodob oo kale ah maxkamadda caalamiga ahayd ee international court-ka oo ku diiday dowladda Kenya codsigeedii ahaa in dib loo dhigo mar shanaad dacwadii badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysay iyo Soomaaliya oo ku guuleysatay in warqadii uu qortay maxkamadda caalamiga ah in aan dib loo dhigin kiiskaasi badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaya haddaad ku cusub tahay channelka subscribe-ka saar si aad noola socotid mar walba uu kugu soo dhaco adiga oo gurigaaga jooga halkani waa qubanihii Sharif Show iyo Ilhaan Cumar oo xil cusub loo magacaabayo Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale ninkii kala saar lahu markale ku soo dhawaada qubanaha Sharif Show maxkamadda caalamiga ah ayaa maanta bishii 13 ay tahay bisha labaad ee Febraayo 2021 waxay soo saartay in aan dib loo dhigaynin go'aan ah dacwadii badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyay iyadoo aan la socono maalintii daraad ahayd in dowladda Kenya ay codsatay in dib loo dhigo dacwadaasi oo ay sheegeen in looyaradoodii qaarna ay dhinteen qaarna ay shaqadii ka fariisteen qaarna ay ayagu shaqadii ka cayriyeen maadaama waajibaadkii loo magacaabo difaacidda badda Kenya ahayd ay looyaradaasi caalamiga ah ku guuleysan waayeen haddaba dowladda Soomaaliya ayaa markaas sida la soconayba warqad u qortay maxkamadda caalamiga ah kuna weydiisatay in aan mar dambe dib loo dhigin dacwadaasi taasi oo maxkamaddu go'aan ay maantay oo axad ah maanta oo sabti ah aan dhahay ay ka soo gaartay bishii 13 bisha Febraayo 2021 ay tahay taasoo maxkamaddu ay tiri dacwaddu waxay dhacaysaa 15 bisha Mars ee soo socota ilaa iyo waxay soconaysaa 19 bisha Maarso ama Maash ama bisha saddexaad ee soo socota taas waxay tahay guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay iyadoo dacwadaasi markii uu koobaadna uu maxkamadda geeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dhacdayna oo xilligeeda dhamaadayna ay iyaduna dacwadaasi qaybteeda ay ka sii waday oo halkaasi ay ka waday haddaba ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore Mahdi Qadar Guuleed ahna kusimaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka ay bal ila dhageysta والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan rabaa inaan munaasabaddan uga faa'iideysto in aan shacweynaha Soomaaliyeed ku wargeliyo in maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan kama dambaysta shalay galab ka gaadhay dhageysiga dacwadii badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya dacwadaas oo gudbinihii qoraalaha iyo dokumentiyada hore ay u dhamaatay 2018 December waxa ay muddaba u madlanayd in la dhageysto doodaha afeed oo luqadda af Ingiriisiga lagu yiraahdo oral hearing in dhinacyadu maxkamadda horteeda ay ka soo jeediyaan maxkamaddu go'aan waxa ay shalay ku gaadhay dhageysigii dacwadda oo horena ay u mudeysay hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe sidaa daraadeed dhinacyadu ay u soo diyaar garoobaan 15 ilaa 19 bisha March ee nagu soo aadan ama Maarso dadka qaarba sida uu yaqaan 2021 in la dhageysto dhinacyada habka virtualka ama muuqaalka fogaal aragga ah iyo hadday suurta gasho habka dhowr qof in ay ka soo qayb gali karaan sida u jeedaan Mahdi Qadar Guuleed wuxuu ka hadlayay arrintii badda oo uu
aad iyo aad aan dhammaan ugu faraxsannahay oo arrintan ay tahay qadiyad Soomaaliya oo dhan u taalla in badaheena iyo xuduudaheena Soomaaliya oo dhan meel walba aan joogno aan ka midaysannahay oo markii laga reebo xagga Soomaalidu arrimaha siyaasadda ee gudaha la isku haysto ay ka muhiimsan tahay badda caalamiga ah ee dalkeena inaan waardiisano xoolihiisa baddiisa iyo wax walba meeshaan la isku haysto oo sidaad hadda qaraarada aan ka tusi doonaba u dhaxaysa badda Soomaaliya iyo Kenya badda Kenya aad bay u yar tahay xaleef yar bay ku jirtaa Mombasa jiira ka soo gasha maraakiibta dhan ee caalamka ka timaada uga timaada dalkaasi Kenya oo shixnadaha kala duwan u keentana waxay soo maraan badda Indian Ocean-ka ee Soomaaliya dhinaceeda ayay soo maraan marka dhinac yar oo corner ah ama xaleef ah ayay Mombasa ka soo galaan meeshaan marka Kenyaati way isku dejinayaan Soomaaliya ayaa iskale wana ogyiin waxay kiiska dacwada ay dib ugu dhigayaan mar walba in maxkamadda caalamiga ah ay u xukumayso Soomaaliya ayay la socdaan iyagoo sheegay qareenadii hore shaqada inay ka cayriyeen kuwa cusubna hadda ay keenayaan oo ay soo magacaabi doonaan taasoo maxkamaddu ay maantay ka diiday Kenya marka waxay ogtahay markastaba baddan Soomaaliya inay leedahay in Soomaaliya loo saxiixi doonaa way la socotaa marka Soomaaliya muhiimadda ay u dacwoonaysaa waxay tahay meesha waxa ku jira lacag lagu qiyaasay markii la iibsho shidaalka halkaas ka soo baxaya iyo gaaska dabiiciga ku jira lacag 5 bilyan oo dollar ah ku jirta oo Soomaaliya muddo badan ay wax walba u tarayso dibudhiskeeda iyo barwaaqaynta Soomaaliya marka waa inay heshaa in meeshaas ayadu ay u madax bannaan tahay si maxkamadda caalamiga ay ugu xukunto oo shirkadaha shidaalka qodana ay ugu soo dhiiradaan in ay halkaas shidaal ay ka qodaan sababtoo ah caalamka shirkadaha waaweyn qalabca waxay wataan lacagta dhan ka qaalisan ee shidaalka halka laga raadinayo oo bilaayin dollar ku fadhiya oo rigaga ah baa shidaalka lagu qodayaa iyo qalab kale oo casri ah marka ma rabaan meel la isku haysto in ay dhex galaan ama shidaal ay ka qodaan marka Soomaaliya maalinkii insha Allah way xukumi doontaa maxkamaddu ay u xukunto halkaasi waxa laga qodi karaa shidaal aad u fara badan oo bilaayin dollar oo lacag ah ay ka soo galayso oo dakhliga Soomaaliya dib u dhis iyo xag military iyo xag rayid baa lagu dhisi karo dalka Soomaaliya laguna soo gadan karo diyaarado waaweyn oo kuwa xamuulka qaada ah iyo kuwa loogu talagalay difaaca cirka ee dalka Soomaaliya sababtoo ah 5 bilyan oo dollar ma ahan lacag iskeersa ah ama lacag yar ma ahan haddaba barnaamijkaas insha Allah biidnillaahi kariim waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay maxkamaddu inay ku gacan saartay codsigii Kenya ahaa dib in loo dhigo maadaama Kenya ay ku kalsoonaan weysay 5 jeer oo dambe looyaradii ay soo magacaabato looyaradii ay waayeen meel ay dacwada ka bilaabaan iyo meel ay ku dhameeyaan intaba maadaama xaq darro ay dalkaasi Kenya Soomaaliya badeedii ay ku haysato shacabka Soomaaliyeedna waan ka midaysannahay meel walba aan joogno iyo fikrad walba oo anagu aan kala qabno in badaheena iyo xuduudaheena cir iyo dhul iyo bad iyo cirba aan difaacano insha Allah biidnillaahi kariim waxay noo soo socota Ilhaan Cumar oo loo magacaabay masab cusub oo siyaasadeed iyadoo ah senatorad ka tirsan aqalka hoose ee Congress-ka Mareykanka ayaa waxa loo magacaabay haddana inay noqoto gudoomiye ku-xigeenka labaad ee arrimaha xuquuqlisaanka iyo arrimaha Afrika iyo samafalka ee aqalka hoose ee sanadka ee dalkaasi Mareykanka haddaba la socosho waxaan hadii lahaydno Ilhaan Cumar ayaa waxa loo magacaabay haddaba jago cusub oo loo magacaabay maalintii Jimcaha ahayd ee la soo dhaafay oo bisha 12 bisha Febraayo ahayd 2021 ayadoo jagada cusubna sanadka Mareykanka ay u codeeyeen in Ilhaan Cumar ay noqoto gudoomiye ku-xigeenka guddiga qaabilsan xuquuqlisaanka caalamiga ah iyo arrimaha samafalka ee Mareykanka uu bixiyo lacagaha qarashaadka ah ee Mareykanka uu dibadaha sadaqa ahaan uu u siiyo wadamada soo koriyay wadamada gaajada ka dhaceen iyo wadamada uu rabo in uu kalkaalo ama duruufaha dagaalada sokeeya ay la soo gudbaanadeen iyo waxay noqotay gudoomiye sidoo kale arrimaha Afrika inay sanadka u qaabilsan doonto jagadan ayaa ah jago weyn waxay kormeeraysaa dhammaan dhaqaalaha Mareykanka uu ku bixiyo xagga samafalka iyo xuquuqlisaanka Mareykanka ayay sidoo kale eegaysaa iyo xuquuqlisaanka caalamiga ahba iyo hay'adda waxay la shaqeynaysaa jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee xagga xuquuqlisaanka caalamka u qaabilsan Ilhaan Cumar hadda ka hor waxay dagaal afka ah oo adag ay la soo gashay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump oo asaga xukunka ka tagay maadaama markii doorashada madaxweynaha cusub ee Biden uu uga adkaaday haddaba jagadan cusub ayaa muhiimad weyn u leh Soomaalida
Soomaali Americanka ah ama dhalashada Mareykanka haysata maadaama qof Soomaali ah ay tahay Ilhaan Cumar oo dadka Soomaalidu ay ku faanaan Soomaaliduna ay masab sare halkaas ka gaartay aqalka sanadka in Ilhaan ay noqoto gudoomiye ku-xigeenka waaxda u qaabilsan arrimaha Afrika xuquuqisaanka iyo arrimaha samafalka ee aqalka sanadka ee dalkaasi aqalka Congress-ka andhehe Congress-ka ee dalkaasi Mareykanka iga raali noqdo marka hore hadda sanadkeeni waa Congress-ka weeye Ilhaan Cumar haddaba intaas ayaan kusoo koobaynaa caawa barnaamijkeennii haddaad ku cusub tahay subscribe-ka saar si aad nala socotid mar walba insha allah iyo like iyo share-ka lana sii waag saaxiibada mar walba Sharifa Show wehelkaaga ha noqdo gurigaaga iyo mobilkaaga adiga ag jooga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh